haye kulanti wanaagsan aad baan idin salaamaynaa aad baan idin soo dhawaynaynaa rabadaan wanaagsan rabadaantii maanta imse maris waxay maraysaa rabadaan maanta 13 maasha Allah xalay tole xataa waxaan daawanayay bada yixiid muddo 15 maasha Allah oo dhameystiran waxa weeyaan waa masooma ba'ay waabay gabagabowday masooma ba'ay mutadabiyo waxa hadhay 23 kaba yar 17 weliga xisaabta iskuulka waa dhici والله شيء والله وادي عشرة الله تدبي طبعا صدق طبعا دي اللي صمنا يعني هنا تدبي طبعا حتى سجال لا تكون ما تروح حارج لحية طبعا نيته وحي يقول صدق تدبا بدك يدك تدبا دي بنهروك كشرت وطي مركا وحويان قيبت حسابات كان يجا وقابل سن آديات بان والحمد لله هاي ميل كستان نقد دعواني سند نقرأ سقطان البرنامج هذا للسقطين ما شاء الله لما بهويو يجي كفايدة استي تربية ذا انت عرورته sidoo kale waxa leeyahay ma sha Allah iglanay waxa aad iyo aad looga soo falceliyo dadka qaarday waxaan ku dagaal baba diyaar ku leeyihiin baan isleeyahay waxa yiraahdaan anaga inoo jeeday haye dhaqamadii ragga horta waad kala xigsatay raggii Afrika jooga si gaar ah baad ugu hiilisay ama ha noqoto Jigjiga ama ha noqoto Nairobi Afrika oo dhan Muqdisho caasimadii Hargeysa ha noqoto guud ahaan waxaan ku waadeen wada hiilisay halka aad ku qurbahana waxaan ku wada aad tii dheeraad ku dhigtay marka horta ilaa iyo horta dumarkii ay maqlaan raggi waxa weeyaan kuma cafiyayaan waxay leeyihiin dumar way dumaraysay horta waa la leeyahay arrimihii raggana ficilladii waxyaabihii laga soo sheegay ee commentiyadii kugu leeyaabka badnaa maxaa kamid ah intaas oo qof ayna soo qaraacday taasoo fariimood baa leeno dhaafay snapkaagu is qabsaday instagramka weynagii kala guri kara weynay waa adigii taleefankii wadanka laga hayay dawaqay waanigii fly mood saartay marka horta bal inteenan dumarka gabadhii taleefankeedu waa kaas uu xiran yahay fly mood baa u saaran waxaan qofkay rabtana intay halow taado oo garaacday dib u isata wax la yiraahdaa naagta soo saar godobay soo qaadatay naagta soo saar ayaa dushayga soo kortay waxay moodayaan de kuwa ingiriiska bas maaha qurb waa qurbi horta laakiin inta ugu muhiimsan hadaynu soo qaadano waxay yiraahdeen la ilaah dadka ingiriiska qofci waa aniga qof waa naxay marka qofacday laakiin waa ina saxatay baan u fahmay dhibaato male waa ina ishiiday waa sidii lagaaga naxay ma waxad qofcin ba la ilaah wixii dacwad daba socotay miyadan arkeenin inta ugu muhiimsan baan rabaa inaan soo qaado inta ugu muhiimsan xidha wala intaan heer ka gaadhin wadanka waa ka cararaynaa fahanti okay intaan dumarkaan lu gelin balan faalayno waaya ka hore horta qaar waxay yiraahdeen wadanka waan iskaga tagaynaa intaan maya ma waxay yiraahdeen intaan ee sababtoo ah waxay maxaan yiraahdaa wajigoodii ma xukumi karaan iyo barigii laakiin waxay xukumi karaan aqliga bas aqliga maanta badan 20 tan imsaatay 20 sano waa sidaan iska kari waaye maalin kasta xisla aqliga waxaad u sheegtaa adigu waxaan 17 dhaafin sida hablaha qaar 10 sano u dambeysay birthday isku sanada dhigaan isleeyay walaaladan niyad ma ka sii korayaan waa niyadan way dhaamaanay ka socdo qofkii aqligiisa ayuu xukumaa oo 20 sano isku sheegaya laakiin bari ahaan waa masaajidkii iyo ragii culimada ahaa karaamada iyo sharafta lahaa ee wajigii de moogtay daadu ciyaar ma ahe sax daadu way socotaa moogtahay marka ninkii isagoo maxay tay suuqa maraya labadii lugood baa suuqa maraya laakiin rag badan hadda waxay dhahay ilaa tooba naguma ogid ilaaha madaxiina saan noqday waa madaxiina saan noqday waxay dhahay madaxaygana waan ku kalsoonaanaynaa laakiin ayaan hore sheekadii aad haddana ka sheegtay ayaa cajiib noqotay taasaa la soo qaatay ninkii bidaarta ku kalsoonaan waay adna ku kalsoonaan maayo ninkii bidaartiisa ku kalsoonaan waay ma gabadh reer dhul ku kalsoonaan no runtii may adigana biritana ku kalsoonaan maayo wuxuu ku leeyahay oo dhabanadaad maxay saa u yara noqdeen may wana sidaa noqdaan qalliin gal ilaa isagii dhamaaba qalliin madaxa soo galiyay marka waxa weeyaan adna ku kalsoonaan maayo biritana san lama sii ahaanayo waxa ku dhisagna wala sii weynaanaya markaad weynaataa meel soo qalbu ku ordhay maxaa hawsha ku galiyay la oo turkiga iska xaadiray oo turkiga iska xaadiray marna bari isku shub marna waxaan ku wax kale isku shub marna naas isku shub marna iska soo shub ha marna dhinac iska soo shub marka sadabadna doctor ileedin kuna dad aamusan ma tiidin sawiradeedii before iyo after isla daba ordaysan ileedii ku daynayaan waa badane before tii after Soomaalida ma taqaanin yaa bishaaro hadda bishaaro soo tihiin turkiga tagtay wax badan baad express ka soo dhigto soo maxay tahay extra ordinary baad ka soo dhigtay
maba ku xasuus horta inay Soomaalidu ku xasuusto kama horeyso taasna waa minidka aad taagantaa la qabsanaya laakiin mararka qaarna way jirtaa dadka daba dhigtaan before afka ma jirto markaas ma jirto Soomaalidaasi adiga waxaan ku yiri bishaarada waa dadkeena waxa ku jecel mataqaana wallahi qaybta xusuusta waxaan ku yiri taa horta run baad ku sheegtayo saddex cisho waxba lama dhaafaan dabadna inta wixii ka dambeeyay waa lagu ilaaway qof baad arkaysaa maanta saddex cisho social media email walba loo sido khaladkan buu sameeyay waxa ugu xun iyo waxa ugu weyn hadduu sameeyo waxaan ku yiri laba saddex cisho ka bacda qofkiiba maaha waaba la iskaba ilaaway tiradii iyo taariikhda ugu ma jirto oo marka dadkeena keenay xaraan bay ka tahay inaan waxaan ku yiri dib lagu xasuusanayn ba wallahi hal qof kuma xasuusanayo absolutely wallahi taa horta waa run oo waan arkay markaas koortka xusanay ma jirto marka hadda bishaaray haddii aad tagtid laguma xasuusanay marka ninkii wuxuu qorayay halka soo qal الله إله كوقف الله بشارة أو beautiful صلاة وصلاة والله وتصير أنا سايل بدو قرح بدها تبو كورني يقف كل لوجو قاتي وارنتاسي مركا تحسوا إحنا قلنا مركا أنا دتك كل في كل لنا حتى حياة خلطات هذا السمين مركب اللي لا ويدم بيجانا جنا لو ما صار ولا ليه لو حبها السميننا لكن هذا نص نقدر نتي إجلنا عاديات بالله صداي نمانكي وعي هي محل اللي جلسين سا حتى وحيرة الدب بشارة مثلا هذا دون يصير عنك وإحنا قشكتو markii aanu u imanayay aanu keeniyay hargeysa la taagnay oo inaga sheegay idin muqdisho waxaan adigu bas aad u tiraahdo garan lahayd inta soo dhexmarsan macna adaa soo farsaday ha anigu wallahi tan idin leeyahay imika ma jirto iyada markay waxay samaysay anigu horta dawaadigii difaaco yiri wadankan markaan joogno anigu dad iska shaqaystaana horta idagayso hadaa wax ka weydiiyaa sidan idin galay bariyaa sidan idin galay ma sida qalbi caruurta ka hadlaysaa qalbi caruurta horta mid kale sidaan aad halka ku joogtaan ma sidaan halka kuma joogno dumarka iyagana sheekadooda kulli waad soo wadaayo maxaan dhadaayo kuma aan weydiin laakiin waan duubi doona waan dhageysan doona waa next ragga iyo dumarku toona midkaayaba hadaanu nahay halkan saa kuma joogno markaan qurbaha ka baxnaan dadna Afrika tagno qurboon waxaan markaan ku leeyahay waa Europe iyo America iyo meel kasto reer Australia irto wadada khalaaq loo iska yara kooban markooda horena too much ma aha oo wala laga nabad galaa marka iyaga horta kuma fogaanayna laakiin hadana noo Australia dadku ma jirtaad leedahay ma Australia dadku ma jirta nabal ma aragtay qof qaatay laga taagay Australia ka yimi wallahi ma arkaysan reerkaas YouTube xataa Australia ma joogo waa dad wada xishoonaya reer Australia waa dad amaan laga helo waa qaarada kaliya nigana ii dhimano aan isleeyahay aad waxaan ku dhisay tii soo eegtid soo martid marka waxa weeyaan insha Allah waan israaxina waxa saydiin sheegaya halkan waxaad weydiisay iglanay isku sida kuma joogno nimankaygu halkan markay joogaan waxa weeyaan wax yaro wax iska xiran yihiin maryo yar kuwa sheegaysay walaala casra wali yaro jijil sanad isleedahay talow maxaan dhaday xagee laga keenay min 1999 baa la isticmaali jiray waxay iska xiran yihiin shaarar yar iska caadiya suuqooda iska taagan yihiin waxa weeyaan si yaro iska kooban bay nolosha dhaqan way iska taagan yihiin suuqa dhaqan waaye iyo koodaas iska joogan iyo xaafadeen hadeerta in soo dhaafnay haweenku ugu kali iyo aqoonaa dumar kaliya ku nool waxa xaafad hees la yiraahdo iska dumar badan oo haweenku ugu kali baa la yiraahdaa xaafada dumarku ugu kali iyo xaafada doqon ma waaye South Hall aaga goolaas ay adigu iska taagan yihiin way jabal iyo xagaas u sii soco village dhaaf waligaaba nimanka iyaga North London hadalkeeda baa sheegay waa meesha lagu badhaaray saasan anagu iskana wadamada kalena iyaga is yaqaano kulli caramel de man arkay maxaan dhaday Minneapolis iyaga xabad kafee la taaganay marka dadka sidaas aad amaanka ka helaysid saasan isaga wada wanaagsan rag iyo dumarkaygu bacaynkaas aan bala waxay ka taagantahay markaan soo degno horta waan u sii shopping garaysanaaba istusnimada show offka markaan dharkan xiran doono markaan Afrika tagno markaan soo dabadeetana ninkii muraayada halkan suraya 20 garan oo yareedna uu sii iibsanaya markuu idin soo socdaba dhowr iyo 10 saraawiil oo garamaanta qaadanayo kala mar saddexdiis raacaya buu istul saaray hadda halkan saab muu hayn moogta akhlaaq buu lahaa waliba akhlaaqda kaaga darna xitaa buu labisan jiray akhlaaq labis xitaa ma yahayn dabadeedna waa kaas xogaagii hagbadii taxigu ururinayay intii taraaja ka soo gashay gabadhu hagbadii waxaan ku wixii kale intii ay hayeen intay soo qaataan 4 shilin ugu horeysa 2 bilood bay doonayeen inay wareeriyaan 2 bilood bay rabaan inay maxaan dhadayeen in saqiir suujiyaano halka waxaan ku shinay 10 jirka hablihi aanay nabad ay naga soo daadsadaan hadda toran hadda biilkeeda ma awood hadda maskaxdu ku xasuusto ma leh hadda aqli mas'uuliyadeed ma leh hadda raganimo ma jirto inaan reer islaamid dhaleen bu soo lugoynaya ilmaha imanaya danka ma laha waa ka shaarkeeda sheegaysa halkaas xidhay waa ka kule you know and oh my god waxana xagayga hadda oh my god iska leeyahay warqadaha waa loogu turjumaa markaa hadda waliya bil halkayga markuu nala joogo ku soo wacaya na walaalahay WhatsApp kaaga eeg buu ku leeyahay warqad buu soo diray job centerkiye councilkii baa ila soo hadlay
warqadda ay akhriyo maxay ileeyihiin markaasaad leedahay de waxay ku leeyihiin maxaad council tagiskiisa ka bixin oo hadda tala miyaan ilaaway November intaan ma garanayo markuu idinka idin yimaadaan oh my god waa nin British just jaldigu idin tusaya marka waxa weeyaan qaar badan fara badanna dadka idin yimaado walaalahay anagu dalkan markay joogaan waxba kama qorno kiniinay qaataan oo dawladda ba kiniinay u qoran yihiin dabadna hadda idinka istishaan uu kaaga siiyo waxa lagu leeyahay qof waalan baa la dagaalantaa baa lagu xidhaya oo gudba marka waxa weeyaan qofkani kiniinadiisa iska qaata waad isku imanaysaan waad murmaysaan waaba xadka saaba qofkii ku soo baxsanay waa qof hadda ku dilaan wax la weydiin toiled meesha dawladda ku qornaa waxba kama soo qaadeen bismillaahir rahmaan marka kuwaas noo yimaadaan dameydin ma wada yimaadaan inteeda wanaagsan anigu ku jiraan way idin timaadaa waa inta anaga noo soo labisatay waa inta badan hadda sida qeyr mas'uulnimada u dhaqantaan ka hadlaya qaar badan oo wanaagsan oo akhlaaq leh oo dad fiican oo dalkii investment ku sameeyay oo dhaqaale ku sameeyay oo dib u guuray oo horumar geystay oo dalka dib u dhisa oo dadkooda wax tara oo markay idin yimaadaan wanaaga oo maxanaday ciday guursadaan si fiican ula dhaqmay oo aad u fara badan baa yimaada intii wasal walba maxaa midba qurmisameeyay midka qurmisaynu ka hadlaynay cunaa qurmiyaad leedahay hata ala kulli xaal qaar baan iyagoon cunin caadi ahaanba qofka maskaxdu ka koraa moogta wasad sheegaysay halkan markay joogaan niyad moral ma hayaan iyaga baa depression iyo stress haystaa niyadda laga labisayo qofku niyadba labisu ma hayaan xagga markay yimaadaan maskaxdu is ciyaaleynaya teeda labaad mid ogow dadkani waxyaabo fara badan oo waxa jiraan anigu hadda soo moogid ilmo yaro toy ciyaaraya ama game ciyaaraya markaan kuwa ku qabsadaan ujeedadu maaha inaan asaasaqay maaha wuxuu wax kale markay yaraan maan haysan waxa la yaalo wixii markaad yarayd ku gooyeen dhan weynaan baad ku raadinaysaa wallahi markaa iga qor dabadna anigu game kan inta la soo qaato maartay ay istilayaan maxaan dhaday ama kubadda lagu ciyaarayo iyo allah maxaan dhaday waxa haysata wallahi moogtahay dabadna waaniga halka gamekii 3 iyo 4 tirinaya ee bahalkiisa wax kale ujeedadu maaha ujeedadu waxa weeyaan walaal markaa yaraabay waxaan ii goysay dadkani marka hadda waxaad naga dhaadhicinaysaa baan isleeyay tishaabi baan isleeyay talo sidee la dareema baan isleeyay sidee baan isleeyay moogtay wax kale maaha hadda waxaad naga dhaadhicinaysaa marka waxaasi nagu qaado walaala maya markaanu dadkani aad ku arkayso waxyaabahaas markay yaraayeen baan teenage-nimadii may dhadhamin dhallinyaranimadii way u soo goysay qaarkood way soo tahriibiyeen qaarkood wadankii bay ka shaqaynayeen Afrika jooga qaarkood way qaxayeen qaarkood halkana la keenay waxaas dimiya ama waxba lagu soo dhoofiyay ninkii naagtiyo mid baa abuse gareynay adigu dadkani last 20 years meel kuma oga haday karayaan sida Ethiopia 10 sano isaga jirtay isaga jirnaa adoo xirtay inay dabasido waa kugu qaatay ha iskaga kaaga qaado ilaa hawlo badan waa kugu qaatay haweenkii qaybta dambe nagasti wayno berritoli Ramadaan 14 iyo qaybta haweenka maanta waa khamiis jimcaha iyo hadii Ilaahay ka dhigo xaaladaha haweenka ayay inoo ahaanaysaa kamarmaankaygu aad buu mahadsan yahay idina waad ku mahadsantiin daawashadiina